Waxaa jiraan laba qaabood oo loogu talagalay markaa rabto inaad shay wareejiso aad ku wareejin karto Sketchup dhexdiisa. Qaabka koowaad ayaa wuxuu yahay isticmaalka qalabka loo yaqaano Move, waxaana laga helaa menu kore. Klik ku dheh ama inta ka soo dooro ama keyboard shortcut ka isticmaalo M taabo. Markaa rabto inaad shay wareejiso, shaygaa rabto inaad wareejiso korkiisa ayaa imaanaysaa. Box cagaaran ayaa sidaas ugu wareegsamaya asiga dhan. Haddii aad u fiirsato calaamado yar oo gaduudan oo balasna way kusoo dul sawirmayaan. Calaamadaha gaduudka ah oo balaska korkooda ayaa tagaysaa sidaas. Klik ku dheh sida kadibna mouse-kaaga wareeji dhinaca rabto. Escape taabo si uu ugu noqdo meeshuu joogay. Sida labaad ayaa waxay tahay isticmaalka qalabka loo yaqaano Rotate, waxaana laga helaa asigana menu kore. Waa sawirkan. Klik ku dheh. Marka qalabkan markaa rabto inaad wax ku wareejiso, waxaa suubinaysaa shaygaa rabto korkiisa ayaa imaanaysaa. Waxaana dooranaysaa angle-kaa rabto inaad u wareejiso. Yacni ma horaa rabtaa inaad u wareejiso mase gadaal mase asigoo sidaana dhulka yaala rabtaa inaad saas u wareejisid kaliya aad sii jeediso. Haddaada ka fiirsanin meesha klik ku leedahay, waxaa laga yaabaa si khaldan inuu u wareejiyo. Hadda inta kale klik ku dhahno aad sii deyno. Haddana inta klik ku dhahno aad sii deyno. Ma aragtaa qaabka u wareejinayo. Qaab khaldan ayuu u wareejinayaa. Marka waxaa loo baahan yahay inaan ka fiirsano meesha klik ku leenahay. Haddii aad ku aadin weyso angle-kaa rabto inaad u wareejiso, waxaa suubin kartaa oo isticmaali kartaa keyboard-kaaga falaarihiisa. Adigoo taabanaya hal mar falaarta kore, wuxuu ku log gareynayaa blue axis-ka ayuu ku log gareynayaa oo xagga dhulka xigo. Waxaa klik ku dhahdaa marka geeskaa rabto inaad ka qabato kursiga klik ku dheh. Sii daay. Haddana klikta labaad waxaa ku dhahdaa dhinaca rabto kursiga inaad u wareejiso. Klik ku dheh. Wareeji. Dhinaca rabto inaad aadiso marka aadisid. Klik ku dheh. Meeshaa rabto. Marka isticmaal qalabyadan loogu talagalay in shayyaasha lagu wareejiyo aad iyo aad ayay ku anfacayaan.